sanadihii la soo dhaafay waxaa ahmiyad gaar ah la siiyay kor u qaadista wax soo saarka dhinaca xoolaha iyo weliba beeraha ee deegaanka Soomaalida. Haddaba magaalada Addis Ababa gaar ahaan museumka sayniska ee magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu deegaanka Soomaalida uu ku soo bandhigay wax soo saarada kala duwan ee dhinaca beeraha iyo weliba xoolaha oo casriyaysan iyo weliba kheyraadiyada kala duwan ee uu leeyahay deegaanka Soomaalida. bandhigan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin sarsaro iskugu jira heer deegaan iyo weliba heer federaal ayaa waxaa ka mid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan, wasiir dowlaha wasaaradda beeraha ee dalkan Itoobiya Dr. Fiqur Raga, mas'uuliyiinta iyo weliba agaasinada sektarka dhinaca xoolaha iyo weliba beeraha ee deegaanka Soomaalida, iskaashatooyin iyo weliba shirkadaha kala duwan ee iyagu natiijooyinka wacan ka soo hoyay in ay si casri ah u soo saaraan wax soo saarada kala duwan ee dhinaca xoolaha iyo weliba beeraha ee deegaanka Soomaalida. Daba madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan oo furay bandhigan ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkii la soo dhaafay kor loo qaaday wax soo saarka dhinaca beeraha ee deegaanka Soomaalida iyada oo la beeray 770,000 oo hektar lagana soo saaray dalagga dhinaca beeraha oo gaaray ilaa 25 milyan oo kintaal. waxaanu soo bandhignay wax soo saarka beeraha si guud iyo xoolaha iyo waliba cilmi baadhistu qaybaha ay maaragtay ka qabteen si guud deegaan ahaan abaabul aad u ballaaran baan ka sameynay beeraha tusaale ahaan waxaa deegaan ahaan fursad ka jirta deegaankeena ilaa 10 milyan oo hektar in dhul la qoto oo maaragtay dadkeena looga faa'iideeyo laakiin ilaa hadda 10% wax gaaraynin ama 10% weeye deegaankeena waxa ka hirgalay sidoo kale waraabka waxaanu ku beeran karnaa dhul ilaa 2.4 milyan oo hektar gaaraysa taa laftigeedu sidii loo baahnaa loogama faa'iideysanin deegaan ahaan laakiin waxaanu sal saarnay sanad miisaaneedka cusub ee 2016 inaan qorsheyno ama inaan isla qaadano dhul gaaraya 1 milyan oo hektar kana helo ilaa 30 milyan oo kuntaal. marka sidaa darteed waxyaabihii la soo saaray sanadkii hore waxaa ka mid ah abaabulka sidii loo baahnaa inay dadkeenu uga faa'iideysteen oo ilaa dhul gaaraya 770,000 oo hektar lagana soo saaray 23 milyan oo kintaal. marka taa waxayna tusaysaa isbedel aad u ballaaran inuu deegaankeena ka jiro. madaxweyne ku-xigeenka maruu ka hadlayay dadaalada ballaaran ee ku aadan kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo weliba xoolaha oo casriyaysan ayaa sidoo kale hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan. hadda ka hor ma jiraynin dhulka sidii maaragtay caadiga ahayd ayaanu iska beeranaynay wax cilmi baadhis oo ku salaysan ma jirin. marka hadda abaabulkan aanu sameynay awgeed shaqooyin aad u ballaaran oo deegaankeena ka hirgalay baa jira. xoolaha laftigoodu waxaa jiray qaabkii looga faa'iideysanayay casriyeysnayd ugama faa'iideysanayn. hadda waxaad arkaysaa caanaha geelka oo iskaashatooyin kala duwan oo asaasnay in sidii loo baahno looga faa'iideysto malabka oo kale kalluunka oo kale deegaankeena waxyaabo aad ugu fiican yahay oo haddana sidii looga baahnaa looga faa'iideysanin baa jira. marka sidaa darteed waxaa loo baahan yahay deegaan ahaan isla qaadanay in wax soo saarka xoolaha aanu kor u qaadno calafka xoolaha sidii loo baahnaa loo soo saaro daawooyinka ama cudurrada kala duwan ee xoolaha ku dhacayana sidii loo baahnaa inaan ka daweyno oo waxyaabaha kor u qaadaya wax soo saarka xoolaha. dad badan waxyaabo badan oo fursadaha ka jira deegaankeena ay u arkaynin inuu ka jirin ayaa la arki karaa. marka in ay fursadaha oo dhan deegaankeena ka jiraan sidii loo baahnaadan in laga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay. daba qaybaha kala duwan ee shirkadaha iyo weliba iskaashatooyinka iyagu ku howlan wax soo saarada dhinaca beeraha iyo weliba xoolaha ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay tilmaameen in caqabadaha kala duwan ee soo wajahay ka mid yihiin dhinaca suuqgeynta iyo weliba guud ahaanba helidda lacagaha qalaada. waxaana uu madaxweyne ku-xigeenka uu tilmaamay in ahmiyad gaar ah la siinayo xalinta dhibaatooyinka jiro ay ka mid tahay suuqgeynta wax soo saarada kala duwan ee dhinaca xoolaha iyo weliba beeraha ee deegaanka Soomaalida. suuqgeynta inaanu wax ka qaban karayno xagga suuqa marka laga hadlo annaga inta badan inagu kooban yahay waxyaabaha soo saarno. marka in suuqa la geeyo ayaa loo baahan yahay oo xagga la keeno. sixir bararka waan arkaynaa waan deegaan ahaan dhibta oo inaga haysto dhib aad u ballaaran weeye. marka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha haddii aan kor u qaadno sixir bararka wax badan dadkeenu ma dareemayaan. marka taa laftigeedu inaan qaabka culayska ka jira sixir bararka
in uu ka yaraado wax soo saarka xoolaha iyo beeraha in kor loo qaado shaqooyinka aan inaan deegaan ahaan ka qabanno ay ka mid tahay ayay tahay